wadooyinku waxay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha kuwooda ugu muhiimsan. wadooyinku waa kuwa aan laga maarmin isla mar ahaantaasina gaadiidka iyo dadkuba ay aad ugu baahan yihiin. tan iyo 2010 Somaliland oo dhan waxa laga hirgeliyay wadooyin laami ah kuwaas oo fududeeyay isku socodka ganacsiga iyo dadkaba iyo sidoo kale magaalooyinka Somaliland ka jira. wadooyinkaasi ayaa loo dhisay qaab casri ah hase ahaatee marba marka ka sii dambaysa la sii casriyeeynayay. wadooyinka Somaliland ka jiray waa kuwa laami ah oo iyagu keenay in dadku ay si fudud isku dhaxgalaan isla mar ahaantaasina magaalo ilaa iyo ka magaalo ay dadku soo gudbi karaan. wadaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha soo nooleeya ama soo horumarka gaarsiiya dhaqaalaha iyo sidoo kale in bulsho meel wada degtaay ay wada noolaato isla mar ahaantaasina ay isdhaxgal ay sameeyaan. dadka iyo gaadiidka waaweyn iyo yar kaba wata ayaa ku qanacsan in wadooyinka laami laga wada dhigo si isku socodkuna uu fududaado. waxa sahlaya in magaalada ay maadin gaariyaal cusub ama noocyada cusub oo la bajaajta waxa sahlaya dariiqyada wadooyinka magaalada laga sameeyay ee laamiga ayaa si fiican u sahlaya. waxa kaloo adun in yar la moodaa inay arqalad ku hayaan wadooyinka xaafadaha dhexmaraya rafka, laakiin marka loo eego wadooyinka laamiga waxa soo batay baabuurta oo kala gawaadhida nooc kasta ahaato si fiican waxay u sahlaysaa in dariiqyadii si toos ah loo dhexmaro magaaladii. marka idinku aad baad ugu qanacsantiin wadooyinka laamigu inay soo bataan si isku socodkuna u fududaado. si fiican marka wadooyinka hadday soo bataan isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha ayaa fududaanay meel kasta oo la tagay. bal caqabada dhinaca ka warrama rafka. caqabada rafka kulli dadweynaha markay saaran yihiin baabuurka ayaba dareemayaan wax qoranay wadada naga leex waa raftan kale in mari maray bilaadadii aad wadaaba ku kala sheegay maxaa labadii wado iyo aad mar lahayd tii oo qoranay laamidina mar taas ka dhig marka rafka caqabad dadkina uma fiida baabuurkii wixii gaadiidka aad wadatina uma fiida. sidoo kale iyaguna waxa dareen taasi la mid qaba dadka iyagu gawaarida raaca. wallahi horta waxay ku soo kordhiyeen waxyaabo aad u fara badan oo in hadda la soo koobi karin. mid kale marka laamay quruxdeeda iyo isku socodkeeda wadooyinka gawaarida ay soo badanayaan waxa soo furanaya isku socodka dadka iyo mataqaanaa bulshada iyo mataqaanaa iyagu noolba adeegiisa kala duwan ku qabsanayo oo mataqaanaa baabuurta ay noo soo badanayso may gawaaridu aad u bateen waayo waxa aad ka garanaysaa imika waqtigii ugu laamidii ugu horeysay magaalada laga sameeyay markii ugu horeysay waxa la keenay bajaaj weed deeto waad arkaysaa isku socodka magaaladana gawaaridu tiradooduna aad u fara badan. marka taa waxa sabab waa wadooyinka laamida sababa wadooyinka laamida haddii ay bataan oo mataqaanaa wadooyin laamida aad u qurux badan oo tayala la sameeyo dhismaha magaaladuna aad ayuu isaguna kordhaya. si kastaba ha ahaatee in wadooyin badan la dhiso si horumar ballaaran loo gaaro waxa ay muhiimad u tahay dadka iyo deegaankaba iyo guud ahaanba shacabka Somaliland ku dhaqan. waa nuux kadiye telefishinka caalamiga ee Star Boorama.